shakada horta aan idiin soo wada waxa waaye maaha sheeko maaha qof ii sheega ma waa hadday dhacday anayna igu dhacday. Halo salaamu calaykum akhyaarta. Markii aan meesha kofeega ka soo baxay intii hadaaya i daawatay intaan gurigayga imaanayay ayaa haddana arrin kale cajiib waxa dhacday. Shakada horta aan idiin soo wada waxa waaye maaha sheeko maaha qof ii sheega ma waa hadday dhacday anayna igu dhacday. waxa hadda igu dhacay baa marka idin sheegay. Horta maanta waxay ahayd maalintii ugu horreysay banaanka inta u baxo aan meel oo maxay ahayd toona meel aan hore u tagin 4 bilood oo guriga lagu jiro inaan tagay noqotay maanta. Waxa waaye dukaamada cuntada taga jiro cuntada soo iibsan jiray. Alright, hadaaya intii fiidiyowgayga hore daawatay intaan way daawan doontaa. Meeshii aan barkaa fadhiyay markaan ka soo baxay oo aan gurigayga waxoogaa dhowr tallaabo u soo jiro bas ka soo dagtay ninbaa joojiyay baabuur yar buu watay. baabuurkii buu joojiyey. Foxhole buu ahaa baabuurka baabuurkii markii uu joojiyena wuxuu igu yiri salaamu calaykum. wacalaykum salaam baan ku iri. ninku muslim ma aha Soomaali ma aha. muslim haduu yahay hadoona ahayn ma aqaano hawsheedana maba aha wuxuu yahay. laakiin isagu wuxuuna dhex maraa rabaa inaan idiin sheego ka bacdi aan rabaa waxaan idinkaga digaya inaan idin raaciyo. marka aniga maligayba anoo iska foojigan hadee qof weynna waan ahay iska foojigan oo sideedaba iska qaba. maanta waxa dhacay marka ninkaas baabuur Foxhole watay wuu joojiyey. wuxuu ugu yiri see tahay salaamu calaykum. wacalaykum salaam baan ku iri. wuxuu igu yiri waan ku jeedaa inaa muslima tahay ma Soomaali baa tahay. isukay raaciyey haa baan ku iri Soomaali baan ahay. wuxuu igu yiri magacaa. waxaan ku iri comfortable kuma yahay magacayga inaan kuu sheego waayo anigaba kaaga ma garanayo. intaas markayna dhex martay buu wuxuu isku dayay inuu yaro waji furan ii muujiyo. wuxuu yiri aniga waxaan ahay nin muslima oo walaalkaaya oo Pakistan ka yimid. marka aniga waxaan u jiraa like 3 mitir camal ninka u jiraa. markii uu baabuurka istaajiyaba oo uu joojiyo inaan kula hadlaan rabaa yiriba dhismo iga gadaaleeya darbigiisa aan dabada gashta aniga asaa ku soo jeedaa. marka wuxuu igu yiri waxaan rabaa meelahan ma degan tahay. waxaan ku iri cabaaraan jiraa. cabaarna ma jirin oo meel dhawaan deganaa. wuxuu igu dhahay okay xagee guryahan ka degan tahay. waxaan ku iri iska ilow taasna maxaa rabto adiga in lagu qabto ii joojisay. marka aniga dhulkan jooga sabaaburkiisa ku jira. wuxuu yiri waxaan rabaa gabar baan wacay oo aan qaraabana aniga meelahan ma degani. marka kaniini baa jira inaan caba ay tahay. wuxuu soo qaaday marka kaniini buu wuxuu ka soo qaaday kaniini dhowr xabo laga cabay. bal sheekada si fiican u dhageysta. kaniini dhowr xabo laga cabay buu wuxuu ka soo qaaday baabuurka asaga kaliyaha saarana kursiga hore u ka soo qaaday. kaniiniga uu tusiyay. marka kaniiniga waxaa ku jira marka 6 xabo ku jirto. 3 xabo iyo 3 xabo laba saf aa ku jirto. laakiin 3 iyo 3 iyo 3 9 xabo ka maqan. si fiican ay uga buuxsaday. wuxuu yiri kaniinkan ayaan rabaa biyo aan ku cabo. marka waxaan rabaa gurigaaga inaa i geyso oo biyo isiso aan kaniinkan ku cabo. waxaan ku yiri biyaha ka gado dukaamanka ee kaniinigaaga ku cab. gurigaaga waa ku geeyahay ima ku geeyahay ma dhahin. waxaan ku yiri taas guri wax la isugu raacaya maahe intaad kaniinigaaga qaadato oo dukaanka kuugu sokeeya biyo ka gadato cab. inta ku yaalo wara dukaanka iigu sokeeya. waxaa anaga dhaba magaalada centerkeeda meel u dhawaan deganaho gadaal u laabo oo halkaas dukaana ka jira. hortaan hadaa u baxdana waxaa ka jira meesha baatroolka laga shubto oo leh meel wax laga gato. marka biyo gadee ku cabaanar. ninka wuxuu isku dayay inuu ii qosqoslo isku ka yara jilciyo
siduu u ahaa si ka duwan isaga kay dhigo hadda waa hadda xilligan adin la hadlaayo waa hadda 15 daqiiqa kasoo wareegtay marka gurigayga imid iyo intaan dharka iska bedelayay maaragtay jaakadaha ay asbay intaas bas aan ninka anaga ismagna wuxuu isku qosqoslay wax qosqoslay iska kay dhigo maya sister maya abaya sister maya waxa aadi muslimaata ani muslimaa waxaan ku yiri dhagayso adduunka dhan dad musliga gaala ku wada nool laakiin aniga muslimnimo daraadeed ina inta ku qaato gurigayga ku dhex gashto ma aha ma ku yiri saas la adligeed biyo lee ma rabtido orado maya kulaha musqulna waa rabaa hadda waa mar dambe isku daalay waxaan ku yiri musqusha biyahaba waxa jiraan ku yiri meelo publicood ka raadsan karto orotag McDonald's ka taa furan yihiin meeshaas musqushana ka gal biyahana ka cabaar ninkaas horta inta anaga dhaxmarto waa aniga da qofka weyna baryahan dhan waxa laga digayay waxa la yiraahdo lockdown-ka iyo coronavirus-ka wuxuu keenay dhac dadka guryaha loogu galo waxa dhowr siyada qofka dadka loo weeraraya waxa loo weeraraya post office inuu qof oo adoo xabad badirsan oo alaab dalbanba waxa la iska ka dhigaa alaab maarata delivery in lagu keenay albaabka markaa furtana malagaaga galay horaa lagugu tuurana annagana Soomaaliya nahayo maba taxadarnaba ilmaheena yararka ahida qad inta dheer albaabka furan war waxaad yeelaysiin intii naan af Soomaaliga ay aan ku hadlaaya fahmaysay oo wadankan deganay ama wadan kala deganaa dadka aniga da UK aan ka hadlowaa war bal isjira qatara jirtay waa hada laba talaabo oo jira asoo wuxuu rabaa inuu iga dhaadhacsiyo muslima ah adagana muslimaata he gurigaaga kaniiniya caba manbada adduunka ma biya laga waayay war heede tuug xariifa horta kaasmaana oo hayna tuug ahaana laakiin aad isu jira wallahi kaasina tuug xariifa ahay laakiin aad isu jira all sorts of excuses ya marmarsiyo intii la doono alla idinku soo marmarsiyoona ilmaha yararkaana u sheega albaabada ha furin idinka waaweyn ha furina war wixii intaas laga digayay oo telefishinkaas ka fiirsanay oo newska maxay tan ka aqrisanay asoo socdaaba atembated oo isku dayaaba anigi weynayo bi yimidba wuxuu isiri naagtan laafiyo hayso Soomaaliga oo tartiibka u socoto waa ka aqli badi kartaa asoo kaniini qabyaa iyo soo bixiyo kulaha kaniinigan cabayaa ee gurigaaga egebiyan ku caba ordo dukaan ka gadan ku iri biyo dukaanka laga ma gadan karo horta bal qiyaas waxa ninkaasi sababta marmarsiyada oo ninkaasi rabo inuu gurigaaga ku soo galo gurigii ma dhawa xoolaha guriga xoolaha ii dhow yahay laakiin asaga waxa uga dhiga gurigaaga meelaha inuu ku oolan oo waxa diidayaba inuu jiirooyinka sita ii istaago meeshan galaya si fiirin mar alla markii dambe oo qosqosle oo wuxuu rabaaba inuu baabuurka ka soo dagto waxaan ku yiri meeshaada joog ha soo dhaqaaqin baan ku dhahay waana ka shakiyo baan ku iri waxa ku dhaqmeeshana wax wanaagsan maaha dadka aad muslimnimada ku beer la xusanaysana aanoo hadalkii wada marka u arkay inaan hadalka ku adkaynayo ninka baabuurka inta ku cararay oo qubsi oo niman oo maaragtay fundiyaal oo dhismo iyo wax diyaarinaya jidka geeskiisa taagnaaye oo intuu xoog huruf ku yiri aanoo arkaya oo baabuurka intuu speed u waday meeshana waa xaafad dhexdeedo speed fara badan maba la ogolo 20 ka badanna ku socotid ma la ogolo it's residence place waaye meel la degan yahay waaye aanoo arkaya oo 60 ku wada wallahi برسكن سو أو ما تارجة ده كقرن إلا هذا وحاش الله يسمع نمكن أنا تارجة ده كقرن because ما بودي أرسنين بقى وحاش الله أنا تارجة دي سقرين أما أنا صبر وربل قفك وين أنا قفك وين إذا هذا حسين إنه جوري جاي ده جلسوا كنين وعبه how cheap is that ما هو ملايين الميرير المهين الله هذا وشاقة حالك واحن يهي
dad isku daranaan ku noolna kuwa gaalada ayaa la deganna wallaahi kuwa islaamka ha nooga daran oo salaamu calaykum ta kasoo horeyso aad iyo aad iskaaga ilaaliya ma idinku daahaya aniga ma rabo inaa idinku daaho ma fahamtay ma rabo inaa idinku daaho hadeeraan imid waa iska nasalahay marka laakiin waxaa israha aamusin haddaa aamusto waxaa hadhow waa ilaaweysaa ama waa isdhiganaysaa roob yaroo shuxaha da-aayo ya hadalka marka hore markaan isku fahmi weyna ooba rabaaba inaad soo degto waana nin xoogaa qamarjiyo hasto haddaan isla jirjirono waxaa laga yaabi lahaa waxaaga inay noqon lahayd laakiin anigana waxaan ku yidhi bartaada ha kasoo dhaqaaqin ha kasoo degin baan ku yidhi gaarigaaga tuug baa tahay anaad iga dhaadhacsinaysaa miya kaniini biyaad ku cabta daraada inaad gurigayga u dhex gasho baabuurka intuu ku noqday oo albaabkii qub xoog la siiya oo anoo arkayo 60 ku wada waana xaafad dhexdeed wallahi war 1 second oo miraq iga yiri baabuurki war bal waxaad yeelaysiin nin iyo naagow war bal is jira wallaahi oo billaahi oo tallaahi aniga maanta ana lafahayga u yaabay been idin ma sheegayo lafahayga ana u yaabay aniga qofka weynaha oo taxadarayay oo dhagahayga indhayga ba taagnaayeen ayaa lafahayga u yaabay sida la isugu dayaayo in wax laga dhaadhacshiyo albaabada marka la idin soo garaaco ilmaheena waa ku ordaan waa aqaan aniga waa aqaan ilma waa korsado waa kasa inta dhahar faksihay oo sheega albaab lama furi karo hadoo hal qataar laha 8 qataar ku suubsada albaabkiin waa very dangerous waa xumaad xalka 2020 labaatan wax waana tusa sanadkan sideedana waxa hadda adduunka ka jira wallaahi oo billaahi oo tallaahi kii cilmi dhagood lahaa iyo kii diinta si fiican u yaqaanaba wuu garanayaa aakhira samankiyaaba soo dhowba calaamadihiisii oo dhan ay jooga iimaan la-aanta dadka xishood la-aanta dadka sida ay dadku rabaan inay u noolaadaan war waxaan ku leeyahay isku tigaysiga gardarrada kufsiga waxa haye waddankeeniyaaba nabad ku weyne kii islaameed oo nimado wuxuu rabaa inuu islaanaanahay islaamaa tahay daraaddeed kaa dhaadhacshiyo aad iskaaga ilaaliya ilmahana aad u ilaashada waxaan maqlaaya xataa ciyaal la dafaayo laagtaas mar hore ahayd coronaviruska xataa waa ka horeysa ilmaheenana waa ilmo madax adag waa ilmaha yaryarka ee marka iskoolka ka keento dadka cadaankaa ilmahooda hid soo u dhahaayo markuu laamiga ku tago habartiisa u sugaa ama aabiis wixii waday kuweena hore baabuurta u galayaan adoo arkaya miraq kaa dhahayaan ha iyo hooyooyinkeena kulligood midiba ay 200 kilogram tahay oo aan socon karin oo aan exercise iyo waxba samaynin inuu kama daba ordi kartid hadhow waaba ogtahay kuwan inay indha cadayha inay roorayaan gacanta ka qabta yalla idinka dafin ilmaha albaabadana ha furina ilmaha kale oo waaweyn u sheega ha furina dhaha albaabada duul haydan dile wallaahi oo billaahi talaxaadeeda ha lu istaag anu baabuur igu marida karin ninkaas because qof xoog loo jurmi lahaan ahay cunug yaroo dhoocila ma ihi oo la xambaarsan kara ma ihi badlaakiin bal ka waran ninka inta baabuur iga daba keena tartiib iga daba waxaan leeyahay baabuurkan gaatamayo tartiib kaaga daba waday xooyay waba yaabanaha saanan u fiirsho hada ugu yaraan 7 jeer ninka baabuurka gadaala u fiiri because baabuurka la jidka geeskiisa til wuxuu fiirsanaaye meel aniga iyo asaga iyo marshabiyeedka aan nahay oo fiirsanaaye oo baabuurka la iga xigin meeshii Georgia ku qabtay adiga muslimaata sister muslim waaba tahay Soomaali ma tahay because Soomaalinimada wajigeena nooga qoran tahay uma ekin madowga kaleeto hay ee kuugu soo tagasto raba kuugu soo dhawaad maxaa ku xigtay kaniini oo barna laga cuno wax la wuxuu ku saabsan yahay aanan ba aqaan ilaa soo bixinaa biyaan raba aan ku cabo gurigaaga igay waa gurigaaga ma baadiya gaariga aan aroo dukaan ka gado maya waaba ila sii murmaaba maya gabadhi aan rabay oo qaraabada aniga meelaha ma deganiye nothing gaaman ka imid kulaha
gabadhii aan rabay oon qaraabada ahayn ayaa telefoonkayga qaba weyd war waxaan ku yidhi orda waxaa tag dukaanka tag waxaa u raaciya haddaada xataa biyaha gada karin anaa ku siihaa lacagaan ku iri shilimaadaan ku siihaa ee dhala biyaha ku gada ku sii cabaa hore u sii cab can you imagine wax lagula imaanayo aniga yaaba naxsan yaa allah kuwa yaryarna ilaashta kuwa waaweynna u sheega hadday si kasta u waaweyn yihiin wallaahi u sheega albaabada ha furina idinkana ha furina nimankana ha furina nin iyo naag albaabadiina aad uga taxadara hal qatar hadday lahaan 10 qatar ku dhajiya waa very dangerous life waay gabar yaro xumo surxno sida taydoo kala hadaan ahaan lahaa kawar bawrka ay kasoo dogto surkii ugu dhigto oo ugu dajilahay laakiin jurmiyaan la ma jiidi karo hadaan asaga jiidanaaba alxamdulillah baaburkiis waxaan ku shalaysanahay inaan baaburkiis sawir ka qaad maba ka qaadi karin because telefoonna iyo diyaar ma ahayn waxba ma diyaarsan roob yaro shuxaada ay telefoonada iyo maxaa midna joobka ugu jiro oo jaakada midna boorsada ugu jiro labada telefoon mid aan ka gaaray waqti ma xasuusan laakiin wuxuu baaburka ku wada speed markaan iri I'm sorry I cannot help you markaan ku iri hana soo degin markaan ku dhahay mana ku caawin kara markaan ku dhahay because waa ka shaqeysanahay markaan ku iri baaburka intuu qubsi oo cararay oo xaafad dhexdeed iyadoo tahay oo wuxuu ku wada 60 waa isnaqaanaay ilaahay baa na deeqay 10 caruur ahaan dhalna iyo 6 iyo 7 asan hal mar iskoolka ka soo daldalnaahay maba xukumi karnaa se kala yaacayaan war Allah idin la jiro laakiin ilmihiina isku urursada calooshiina isku keensada taxadarkiina ha badnaado. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.